gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa maanta xariga ka jaray wadada General Daawud ee xiriirisa isgoyska Sinai iyo isgoyska Boondere kalana barta degmooyinka warta nabadda iyo Boondere ee gobolka Banaadir wadadan oo inta u dhaxaysa isgoyska Sinai ilaa iyo Boondere ee ahayd mid aad u burbursan muddo sanada ayaa waxa gudoomiye Cumar Finish horay u balan qaaday in la dhisi doono iyadoo ugu dambeyntiina maanta uu xariga ka jaray waxana uu shacabka labada degmo kula dardaarmay inay ilaashadaan kana shaqeeyaan bilicda wadada gudoomiyaasha degmooyinka warta nabadda iyo Boondere oo munaasabadaasi xariga jirka ka hadlay ayaa ugu mahadceliyay duqa magaalada Muqdisho ka dhabaynta balanqaadkiisa ahaa dhismaha wadadan iyaga oo dhankooda balan qaaday inay ka shaqeyn doonaan bilicda wadadan mudana gudoomiye iyo mudanayaal maanta guul weyn ayay noo tahay haddaanu nahay labadii degmo ee dariska ahayd Wardigle iyo Boondere ama warta nabadda wadadii maxaan ku iraahdaa waa markii yaani maba soo tiri karaba maalin walba xarigun baa la jaraa maalin walba wax baa la dhisaa ilaahay baa mahad iskale waxaan uga mahad celinaynaa duqa magaalada oo juhdi weyn geliyay ومعسنتين أو جودي وين قليي يعني إن محاكو إلى قبل كانوا أو نسمه أو بلعدي صار نقطة أو قروح بناته مجال أمنية أو محاكو إلى بلعسن هالكوهيس يعني قروحسن أو بلعله مركا مثلا قدومية وكاجا مهد علينا دذال كاجا ونكون فرحسن هاي قدومية وحاشرف وينينوه نكونا أماننا مدة وقتها قابنا أجوكته سنة كإبلوين كيرة isbedelada waaweyn ee la taaban kara ee caasimada aad ka hirgelisay isbedeladaas oo run ahaantii hadaysan adigu ahaan lahayn aanan maanta guulahan wanaagsan ee la gaari lahayn shacabka Soomaaliyeed qaasatan shacabka gobolka Banaadir sharaf weyn ay u tahay mudane gudoomiye degmadan warta nabadda iyo Boondere shacabkooda wadadan General Daawud ku dhis wadadan General Daawud ee aad ka u burbursaneed ee ka qodneed maxaa la yiraahdaa wadaanaha sida la moodaayay u burbursaneed oo goobo waxaan u maleenayaa last 30 years ina waxba laga qabanin oo annaga marka iimaaneenayna burburkeeda iyo dhibaatadeeda shacabku lug xitaa uu ku mari karin maantayna aad arkaysa sida dhalaalkeeda iyo quruxdeeda gudoomiye Cumar Finish oo madashaasi ka hadlay ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay in dadaal ay ugu jiraan howlaha horumarineed ee bulshada allanteena ha ahaato bulsho nabad ah ee beled nadiif ah niyadeena dhismayso meeshaan maanta dhisnay oo la burburinayo ama checkpointi ama asgarjiifi aan muhiim ahayn la dhigayo ama dab la qabadsiinayo ama taayir lagu gubayo niyad noo dhismayso ama qashin yaalo wadadu waa inay nadiif tahay mar walba waa inay dhalaalayso waa in laga ilaashado wax alla wixii wax u dhimaya wax alla wixii bulshada wax u dhimaya ma ogolin danaheeda wax u dhimayna ma ogolin balse waxaan rabnaa inaan horumarino taas nagala shaqeeya wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa inta uu xafiiska joogay waxa uu dhisay wadooyin dhowr ah oo muhiim u ah shacabka gobolka Banaadir kuwaasi oo qayb ka ah qorshaha horumarinta caasimadda Cabdiraxmaan Mideeye VOA Somali TV Muqdisho